howlgalkan oo lagu xaqiijinayay amniga wadada dheer ee xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka waxa ay ku guuleysteen inay fashiliyaan miinooyin ay dhagarqabayaasha argagixisada Al-Shabaab ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala wadadaasi. ciidamada danab oo watay gaadiidka nooca dagaalka ayaa waxa la arkayay iyagoo si raxraxan ah wadada u maraya si ay u xaqiijiyaan in amniga wadadaasi uu yahay mid la isku haleyn karo. waxaana howlgalkaasi hogaaminayay taliyaha ciidanka danab ee xoogga dalka gaashaale Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jiniqaar. dhinaca kale kulan looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa bulshada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose iyo ciidamada danab waxaa lagu qabtay saldhigga ciidamada danab ee deegaanka Bilidogle kaas oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada. gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Siidow ayaa muujiyay in bulshada degmadaasi ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada. waxaad tihiin ciidanka ay ku hurdaan maanta dadka reer Walaweyn markaan ka soo qabto waxaad tihiin ciidanka ay ku hurdaan shacabka iyo maamulka degmada Walaweyn sababtoo ah markaad magaalada soo gashaan maalin ha ahaato habeen ha ahaato runtii macnaha anaga markaas waa hurdnaa waa seexanaa haddii la yidhahdo baabur danaba inta maraayay habeen ha ahaato maalin ha ahaato waxay noo tahay macnaha farxad sababtoo ah waxaa naga sii fogaada cadowgii anaga aan ka baqayn. gaashaale Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jiniqaar taliyaha ciidanka danab ee xoogga dalka ayaa tilmaamay in ciidamada aysan shaqayn karin bulshada la'aanteeda. waxaa jira dadkeena shacabka maanta maalinta inuu ugu baahida badnaa weeye waxaan la hadlayaa danab waxaa jira colaad waxaa jira abaar waxaa jira argagixiso waxaa jira faqri intaba inaan la dirira innaga laynaka rabaa haddayna inagu la diririn qof shacabihi lama dirirayo marka sidaa darteed innaga waxaa laynaka rabaa inaynu dhexda u xiranno meel kasta oo qof Soomaaliya oo biyo u baahan oo deegaankeena uu joogo inaan gaarsiino meel kasta oo qof Soomaaliya argagixisa ku dhibaateynayso inaynu gacan siino oo argagixisadana soo dilo isagana soo badbaadino. waxaan u baahanahay meel kasta oo qof Soomaali ah oo aynu ka dhownahay oo uga baahan yahay beer in loo tabco xilliga roobka joognaa shalay markaynu hawlgalka ku jiray waa arkayseen aynu deegaamada marmaraynay dadka beeruhu laba qof bay u xirayeen hektarada iyagoona haysan cagaf iyagoona haysan maxaan ku raahdaa cid u qoda iyagoona haysan xoog u shaqeeya annaga dadka shacabka xoogo ah waxaa la rabaa midigtana inaan ku dagaalano oo argagixisada kula diriro bidixdana inaanu ugu samayno dhaqaale iyo horumar oo aan faqriga la diriro. ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka oo si gaar ah u tababaran waxa ay fuliyeen howlgallo badan oo lagu guuleystay kuwaasi oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxamed Xasan Cali, idaacadda TV-ga qaranka, magaalada Muqdisho.